kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Daldis News ku soo dhawaada wararka maanta aan idin haynana waxaa kamid ah waa sidee xaaladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laamaha amniga oo Muqdisho ku qabtay maandooriyaal iyo dhalinyaro ku eedeysan falal amni darro ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble oo jawaab culus u diray Fahad Yaasiin iyo sidoo kale Professor Maxamed Xaaji Ingiriis iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ka wada hadlay abaarta iyo go'doonka Koonfur Galbeed saaran qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena daawada hadii ay tahay markii kugu horeysay oo boggeena aad soo boqoto waxaan ka codsanaynaa hadii YouTube aad naga daawanaysid inaad subscribe saarto hadii Facebook ay tahayna page-keena inaad follow soo dhahdid adoo aad u mahadsan muuqaalkana sii share gareysid si uu gaaro saaxiibo adiga oo kala ah mahadsanid daawade waxaan ku bilaabeynaa xaaladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wararka ayaa waxa ay sheegayaan in haatan ay soo hagaagayso xaaladda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo waayihii ugu dambeeyay la xanuunsanayay cudurka COVID-19 warar been abuur ah ayaa lagu baahiyay baraha bulshada kuwaas oo sheegayay inuu dhintay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee wararkan ayaa ah kuwa aan sal iyo raad toona lahayn oo ay faafiyeen qolooyin lagu sheegay inay yihiin mucaarad laamaha amniga waxay Muqdisho ku qabteen maandooriyaal iyo dhalinyaro ku eedeysan falal la xiriira amni darro ciidamada booliiska gobolka Banaadir gaar ahaan qaybta weli oo cadde ayaa xalay howlgal lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Hodan halkaas oo ay ku soo kordheen kooxaha burcad ah ee dhaca geysanaya ciidamada ayaa howlgalka waxay ku burburiyeen guriyaha qaar iyo sidoo kale goobo ganacsi oo iyagu ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka iyo calaqa oo aad u farabadnaa dhalinyaro lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin falalka amni darro ee ka dhaca degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa sidoo kale howlgalkan lagu soo qabtay taliya ku-xigeenka qaybta guud ee gobolka Banaadir Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle iyo sidoo kale taliyaha qaybta weli oo cadde ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen in waxyaabaha maanka dooriya oo howlgalkan ay ku soo qabteen ay qayb ka ahaayeen amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan oo howlgalkan laga fuliyay waxa ay hadalkooda intaas ku sii dareen in howlgalka ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo amniga caasimadda iyaga oo dignin u diray dadka isticmaala iyo kuwa ka ganacsada maandooriyaha kala duwan waxaan eegaynaa markan ra'iisul wasaaraha xukuumaddii waqtigeedu uu dhamaaday Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu jawaab culus u diray Fahad Yaasiin iyo Professor Ingiriis ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shalay xilka wareejiyay ayaa jawaab dadban oo culus waxa uu diray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kale Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo eedo hore ugu jeediyay baraha bulshada isaga oo ka hadlayay munaasabadda xil wareejinta ayuu Rooble waxa uu sheegay in ay jiraan dhaqamo xun kuwaas oo ku soo batay dadka sida uu sheegay aqoon-yahano iyo sheeko in ay sameynayaan been abuur iyo dacaayado oo uu sheegay in ay tahay wax aan wanaagsanayn oo loo baahan yahay in laga waantoobo qofka siyaasadda looga guuleysto waxa ku haboon in uu sugo waqti kale balse aanu maciin bidin waxyaabihii aan aragnay maalmihii la soo dhaafay ayuu yiri ra'iisul wasaare Rooble oo jawaabtan uu u diray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin dhinaca kale Rooble ayaa waxa ugu baaqay madaxda dawladda cusub inay baaritaan ku sameeyaan dhibaatooyinka loo geysto gudiyada doorashooyinka xuquuqda muwaadiniinta iyo sidoo kale dimuqraadiyadda dalka madaxda dawladda waxaan ka dalbanayaa in baaritaan lagu sameeyo dambiyadii lagu sameeyay arrimaha dimuqraadiyadda gudiga doorashooyinka dalka ayuu yiri ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha xilka wareejiyay ee Maxamed Xuseen Rooble gudoomiye aadan madoobe iyo sidoo kale madaxweyne lafta gareen ayaa waxay ka wada hadleen abaarta iyo go'doonka Koonfur Galbeed saaran madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen ayaa la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uuna kala hadlay xal u helista go'doonka saaran deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lafta gareen ayaa u soo bandhigay xaaladda adag ee deegaanada Koonfur Galbeed ka jirta sida abaarta degmooyinka go'doonsan oo aan loo kala gudbi karin iyo sidii xal loogu heli lahaa caqabadahaasi kulanka ayaa sidoo kale waxaa
fadhiyay xildhibaano guud ahaan kasoo jeeda deegaan doorashadooduna tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhanka kale waxa ay ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan awoodoodana isugu geey doonaan sidii xaaladda Koonfur Galbeed ee cadiban hadda ay gacan uga geysan lahayn in halkan ay kasoo hagaagto. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen barteena Dallas News waa naga intaas daawade. haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka mar kale ayaan ku leenahay waa mahadsantahay si aad noo dhiirigelisid. fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay ama soo booqato fadlan bogeena follow dheh. haddii YouTube aad naga daawanayso subscribe dheh, muuqaalkana sii share garee. mahadsanid.